waxaan runtii si qalbi furan aanu amaanayaa wiilkii dhalinta yaraa ee halkan soo istaagay oo ah gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Sudan oo caawa aqbalay hadalkii ra'iisul wasaaruhu sanad iyo 6 bilood uu ku lahaa shacabka Soomaaliyeed codkiina kor u qaada waxaan ku bishaareynayaa waa dhamaatay waqtigii qof Soomaaliyeed xuquuqdiisa la duudsado hadii la soo gaarsiiyo farmaajo xasan khayr waxaan rajaynayaa in qof walba Soomaaliyeed oo dhageysanaya meel walba uu joogo Suudaan iyo Soomaaliya iyo dalka dunida in la soo gaaray waqtigii Soomaaliya ay runtii sheegi jirtay anigu ma ooyi Abdulqaadir waxa uu halkan ka sheegay inay dhab yihiin waxaan idin ballan qaadayaa laakiin in la ogaanayo inay dhab yihiin marka la ogaadana in laga qaadayo tallaabada ugu habboon sida ugu dhaqsaha badan ku dhawaad 30 sano ayuu dalkeenu ku jiray mugdi ku dhawaad 30 sano ayaan dunida ka harnay ku dhawaad 30 sano ayuu dhaqankeenu ahaa mid aan ku salaysnayn in runta la isu sheego qof walba oo Soomaaliyeed oo u shaqeysa dawladda Soomaaliyeed madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama safiir ama qunsul ama wasiir ama agaasime shaqadiisu waxa ay tahay inuu yahay adeega shacabka Soomaaliyeedna waa kuwii ku siin lahaa kalsoonida aad u adeegaysid haddii kalsoonida ay shacabku kala laabtaan macnaheedu waxay tahay inaadan u adeegi karin haddii ay jiraan dhibaatooyin la gaarsiiyay arday Soomaaliyeed oo lagu gaarsiiyay magac dawlad Soomaaliyeed waxaan ka bixinayaa cudurdaar iyo raali gelin